محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داوديال ميل كستو جوجتان iyo hawl kasto ahaysan halkan aanu ku sugannahay waa xabaalaha galbeedka masalaha ku yaala ee magaalada Hargeysa koonfurteeda waxaanu halkaas kula kulannay maxamed ismaaciil guuleed oo loo yaqaano ama caan ku ah maxamed jacfaan maxamed waxa uu muddo ka badan 30 sanadood qodayay xabaalaha waxaana uu xafaar waxaana uu khibrad badan oo 30 sano ka badan u leeyahay sida xabaalaha dadka loogu aaso ee loo qodo ee markaasi xaaladooda loola socdo haddaba si aan taariikhdaasi iyo taariikho kale oo fara badanba wax ugu ogaano oo xabaalaha la xidhiidha waxaanu ku soo booqannay xaruntiisa oo uu degan yahayba isla markaasina maqsin uu uga dhisan yahay xabaalaha marka cabaar laga yaro durko maxamed jafcaan waxa aanu ugu horreyn weydiinay bal in uu nooga warramo taariikhdiisa uu xafaar ka soo ahaa waxaana uu ku jawaabay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد horta taariikhdan ku ahaa qodista xabaalaha iyadoo markii hore deer Allah aan qodayo oo ilaa imika baan aan deer Allah u qoto oo wax iibiyana jirin isayay aydi markay tahay ayaa bilowgaygu waxaan filayaa inay tahay muddo 3 sanadood ayaa ka soo wareegay ها وياهي بالمدة أن هذا حبال قدك كوشرتي تاريخي وقع جايب كبدنا كسومرة بروح نوغير تاتابو وحن تاريخ راسي تاعي صو أي هاي ني برجي هراء التاريخ سلالة هاي وقت كلمة كنا تقول هذا بني حبالة سلول بلاقي قالوا أي شرطة إن أي شرطة ما تقول حلو بلاقي قالوا هيا سه تحبالوه نبغى درجته إلى هيك بحيه درجته إلى هيك بحيه وياه مركا خسوين كحبالة يجيون كل ميلو وحب بدو كلا كل ما وحب بدو كلا كل ما وحب بدو كلا كل ما بحتفتي تجدوا يكلا لجي أي نولادان waxaa jirtay dad iyadoo salaadii lagu tukanayay salaadii halka geedka hoostiisa lagu tukanayay banaankii sare kacay waxaa jirtay gabar iyadoo la soo waday oo iyadoo naxaskii lagu wado soo saarantay baabuurkii lagu sido sare kacda waxaa jirtay nin dhakhtarka lagala soo hadlo yidhi uu go'aayo xabaal baan doonayna xabaashi markaan qodno meedkii soo qaada layidhi iskaga kaalay meesha wuu noolaadee إن وحويان دعوين عاد ونحدين بدن رنتي إن قف أنت ودنتي هذانا نولاذي إن حبالهن مركي وجوه الرئيسي قف كي وجوه الرئيسي لقوا عصي تاريخ دي ما حسوتها ها لبلا كل يلا بيه تباك ماشي وحلا يقول رئيسي بيسي كوباد صدحية تباكي أي بيرت يعني اللي يقول شيء محبلة كي ورينا وحنا كبلا والله لبدا كل يلا بيه تمكة بسي أفراد سد حديدي وهجاج إن إلا تاريخ ذا إلا ما أنت إن أو أي لبيه تمنتهاي بشا جولاي لبدا كوني كوي لا تنكا إن ترى ضد أي كو أصلا إن حبالهن مسألة قلبيد منو شيء كرتها ها سنية تمنكم يتدوب بقول يتسجاسن يتسجار أيه كتيرمك way markaad xabaalahan dadka lagu aasayo sifacaynkeeya baad u aastaan ma nidaam bay soo maraan ma wasaaradda caafimaadka soo maraan ma dhakhtarada warqadiisa soo qora ma saldhigyada dhakhtaradiisa soo qora dadka miyaad iska aastaanuun marka la idin keeno habeen iyo maalinba mise sifa sharciyo dawladdu ogtay oo ku aastaan baa jira sifa sharciyan ku aasa oo dawladdu ogtay bal loo yara faahfaahay sifooyinka dadka u aastaan habeenkii markay tahay iyo maalintii waa kala wati way habeenkii waxa loo aasaaf in saldhigga Hargeysa ee meydkaasi xaafadu ku go'o
ka tirsanee ogi inuu warqad ka soo qaado warqad sharciyana laga keeno ya waay waa habeenimada waay tamaalinimadana ay diiwaankii iyo buuggii yaalo waraaqda laga qorayo magacii oo saddexan iyo mas-uuliyaddii cid aan mas-uul hayna aanay aniga total iiba iman karno dhalinyariyo waxaa midna aanan waxba u calaamadin ruux weyne mas-uule mooyaane waa tahay ma jiraan dad xabaalaha sidan adigu aad ugu hagarbaxdo ee aad sheegtay inaad dar ilaahay uun hawshaa u waddo dad kale oo kaala qayb qaato oo dhallinyarii ma jiraan oo xabaalaha sidana kula qodo oo qolka kugula noolo ma jiraan maya dad halka igula nooli ma jiree dad badan oo dhalinyariyo waa yeelba leh oo waxay kala qabtaa jira bal haddaad dhacdooyinkii ugu cajaa'ibka badnaa ee intii aad xabaalo qodaha ahayd kaa soo maray xabaalahan masale galbeed bal 2 iyo 3 haddaad noo dul marto iyo siday u dhaceen oon jeclaan lahayn wallaahi horta dee miciijisooyinku way fara badan yihiin bini-aadanka ilaahay abuurayna markaynu eegno dee wax qaadaso xabaalaha ku filan ise waxaa jirta dee nin dadka noolaaday waan garta qof dee isaguna iilka qaban waayo dibadda usoo tuurana waan arkay oo iilkiiba soo tuuro iilkiiba soo tuuro maxaad u jeedaa ma qof inta iilka la dhigay noolaaday maya mid iilku nacay oo iska soo tuuro mid iilku eeg meydkii marka iilka la dhigo xabaal baanu qodma anaa ku faahfaahinay xabaal baanu qodna xabaashi iilkii baa dhamaystirna waxaanu meydkii hala keeno xabaashii aanu meydkii aanu isku qiyaasnay iilkii aanu gallay meydkii la keenay ayaa xabaashii jignahaasi qarinayey ee jignahaasi liblayey ayuunbaa inta in laeg noqotay marka meydkii sidaa geliya waayahay taas waa mid ka mid a dhacdooyinka kaa soo mara xabaalaha waxaan jeclaan lahaa bal dadka iyaga oo la kanfay la maydhay xabaashii la keenay amaba iilkiiba lagu riday amaba lagu tukanaya salaada jinaasadii ee noolaaday bal nooga shakee way jirta nin baa jiray oo sidoo halkaa lagu tukanaya sare kacay ya oo markii sheekhu allahu akbar yidhi ee takbiirtii u horreysay xidhay tii labaadu allah soo wato uu sare kacuu allah sheekhina kaga dhigtay markaa meydkii baaba istaagay meydkiiba istaagay waay haye dees waa la kala yaacay sawir bal naga sii dadkii meesha joogay xaaladdu sidee ahayd markaa xaaladdu waxay ahayd dadkii jamca meydka ku tukanayey odaygii meydkii masare kaco imaamkii alla ma kaga dhigtay dabeeto waa la yaacay kayntaasaa la yaacay ninkiioo qaaweyna uu ka daba cararay waay oo maryiya kafanta iska reebay waay dabeeto odayga oo saala degta ku sitay ayuu dee kalarka saa usoo qabsaday waay isagoo go-a ka qaadaya waay dabeeto waxay noqotay inuu shaarkii usoo raaco waay inuu odaygiina yidhaaho adeer anigu waxba lamaan socon halkan maan ka soo raacay waay anigu lamaan socon halkan maan ka soo raacay waay odaygii lamu dagaalamayna goy buu ka qaato uu guntaday halkii uu dadka ka daba cararayey magaaladii iyo halkuu cararayey halkuu laga soo qaaday uu u cararo waa tahay waa dhacdo aad u xanuun badan runtii qof kasta oo islaamahina uu dareemayo xabaalaha marka ay dadku yimaadaan qof inaga mid ah xabaasha ay wakhtigiisa dhammaaday la aasayo dad fara badan baa isugu yimaada qofkaasi caan ha ahaado ama qof caadiya oo bulshada ka mid ah ha ahaado dadku waxay isugu dul yimaadaan xabaalaha dushiisa dadkaasi siyaabo kala duwan iyo dhaqano kala duwan bay xabaalaha dushooda la yimaadaan bal ka waran inta badan markay dadku xabaalaha yimaadaan maxaad u soo jeedin lahayd talo odhan lahayd talo waxaan leeyahay mid waa ta meydka midna waa ta dadka meydka wada mid waa meydkee dee meydka waxaa jira mutaqafla dadka ku dhinta meydadkaa mutaqaflaha ku dhinta walaalayaal dib ha loo dhigo
oo dadku dib ha u dhigaa waxaad leedahay waxaa dhici kartaba sida ninkii isagoo intuu dhintay markii lagu tukanayay istaagay oo kale mid iilka dhexdiisa nagaga soo mawtul qaf leeyahay markaa isaga taasi dabcan ninka ha way kan kale iilka dhexdiisa ka soo hacay mutaqaf leh way qofkan dumaree leeyli way umul aroortee baabuurku soo wadayay wadada iyadoo la soo wado sara kacday ee dadkii meydka hareeraha hayeenaha dhanka sise ka wada daatee hareeraha iska wada tuurayna way jirtay halkan uu ahaan jiray dugsigii xalana la odhan jiray iminkana dugsiga turkiga ku yaallo waxaa ku yaali jiray intaan iskuulka laga dhigsan xabaalo bal xabaalaha waxaad ka mid ahayd dadkii ka soo guray halkaas meelo kale ku soo aasay dadkii ku aasnaa bal nooga warran dadkaas xaaladooda dadka xaaladooda 3 nooc baan ku arkay 3 nooc ayaan arkay meyd sidii loo dhigay u yaala waan arkay way meyd sidiisii oo macalkafintiisii aan waxba taaban oo jirkiisu caali yahay waan arkay way meyd dhankiiba ka soo jeestay oo iilkii la dhisay saa gacmaha ugu haya ya oo iska riixayo sidii wax soo noolaaday oo kale ah na waanu aragnay way daaye markaa guud ahaan dadka reer somalilan intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto inteena nool maadaama taariikhda xabaalqodka aad intaa ku jirtay ajalo badan oo go-ayna aad aastay maxaad soo jeedin lahayd maanta maadaama aad nasiib u yeelatay in telefishinka qaranka somalilan aad kala hadasho ummadda waxaan kala hadlayaa in horta meydadka iyo kolleyba xabaalu meel kastaba ha jiraane meel kastoo xabaali tahayba in hoos loo eego oo ummadda sicibka iyo dawladda iyo dadkuba ay wadooyinkoygii iyo dayrarkeyga iyo xabaalaha dayactirkooga ay dib u eegaan iyo wixii ilaahay wax u dhiibay hayaba waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay maxamed ismaaciil guuleed oo maxamed jacfaan dadku ay u yaqaanaan ayuu ahaa ninkan aanu ku wareysanaynay xabaalaha galbeedka masallaha dushooda oo ah maamulaha xabaalahani aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله